guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo halkan maanta ku sugan oo shalay iyo xalayba aan wada joognay wada hadalnay maantana aan sagootinayno waxaan rabnaa inaan idin sagootino idin ducayno idinkuna inoo ducaysaan oo aan ballanno haddii alla idmo galmudug iyo shacabkeeda waxay u baahan yihiin waa isu sheegay meel kasta oo dib u heshiisiin iyo haddii ilaahay kuu idmahayo wada hadal uu ka jiro oo galmudug wax u tarahayo soo dhaweynayo in la gacan la siiyo waan kugu baaqaynaa galmudug aan sadbursi lahayn ra-iisul wasaarahana waa ku ballan galmudug aan lahayn sadbursi lahayn oo dhammaystiran in la helo 4 sano ismaqal la'aantii iyo sadbursigii jiray ceebteedii waa la arkay guddiyo waxaan idinka codsanaynaa dib u heshiinta beelaha ugu horeysa inaad ku hogaamisaan cadaalad iyo dhammaystir iyo abaabul hal meel u socdo haddii alla yidhaahdo marka waxaan diiga guddoonsaynaa sultaanka warqadan aan invitationka rasmiga ahay oo aan beeshaan ugu yeerayno inay ka soo qayb gasho shirka waxaa ku qoran wax kasta oo loo baahan yahay tafaasiil warqadan ay ku qoran yihiin suldaan adiga oo wakiil ka ah beesha inteeda kaleetood ayaan ku guddoonsiinay إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحان كرجيهنا إن إلهي إذن فوضى حلتان كذلك سوى مالي مسهلني سي الصحة ودادك رهار لك وضيها